salaamullaahi saaxiibayaal kusoo dhawaada janaalkeena Yadaam TV. maanta waxa ayna idin heynaa taariikhda koowan ee fanaanka Lil Balil. mataqaana magaca saxda ah fanaanka looga haray raabka waliga ma istiri salaad ayaa loogu yeeraa wax ka ogow sababta loogu bixiyay magaca salaad intoosa asal ahaan ka imaaday magaca Lil Balil xaguusu ku dhashay kuna soo barbaaray maxaad ka ogtahay in magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee cunada karsan ay ku wareejin jireen asaga iyo aabiisa sideesa ayuu ku bilaabday fankiisa xaguusa ka bartay horay ma maqashay in fanka uu ka baxay maxaase ku kalifay in dib ugu soo laabta fanka inta in kale ka badan oo ka daxsoon ayaan kula socodsiin doonaa halkani waa Yadaam TV. fadlan haddii ay tahay marka kuugu horeysay aad janaalkeena soo booqanayso subscribe inoo saar like tana inagu dhiirigeli mahadsanidin ina joogto Scandinavia shaki kuma jiro ina joogto Minnesota codkeeda qurxoon waa ka hela codkeeda qurxoon magaca fanaanka weyn ee raabka looga haray waa Salaad Maxamed Cali sababta loogu bixiyayna waxa ay ahayd awowgiisii oo salaada subax ku maqan ayaa u dhashay waxa uuna ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wardhiigley ama Warta Nabadda. Salaad Maxamed Cali mise Lil Balil sida aad u garan ogtahay asaga iyo aabiisa Maxamed Cali waxa ay ku wareejin jireen cunada delivery-ga ah ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waa kan Lil Balil oo asaga inoo sharaxaya. aabi wuxuu sameeyay jiray Kenya wax la dhaho food delivery cunta la hagaajina guriga lagu hagaajina waa la xirxiraa kadibna dad u go'an oo loogu talagalay oo sida dadka telefoonada gada kombiyuutarada gada adiga business kale oo gurigooda ka soo tagay shaqo oo soo tagay waxa uu sameeyay jiray food delivery fanaanka oo mar cabsi lagu beeray laguna dili gaaray dalka Kenya fankiisa dartiisa ayaa fanka iskaga haray laakiin marka uu gaaray dalkaasi Jarmalka ayaa uu dib ugu soo laabtay fanaanka gilgilay dhalinyarada Soomaalida heesihiisii toobka waxa ka mid ah oo hadda adiga ma ka mid tahay taageerayaasha fanaanka Lil Balil.